السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gabadha ayaamahan aamusneed ee cayuun qurux oo muuqaalo aad iyo aad u badan laga faafiyey isla markaana baraha bulshada ayaantan oo dhan haysatay ayaa soo hadashay kadib markii ay barteeda Instagram-ka ku soo qortay fariin aad iyo aad u dheereed taasi oo ay ku sharaxayday waxyaabo badan. haddii aad nagu cusub tahay waxaan ka codsanaynaa inaad channelka subscribe dhahdo sidoo kale muuqaalka aad la gariid aad iyo aad u mahadsantahay saaxiibkeena qaaliga. Waxaan ka codsanayaa haddii aad tahay qof damiir leh oo uu dhibayo sida dumarka loo bahdilayo isla markaana gabdhaha Soomaaliyeed ee da'yarta loogu ciyaarayo inaad muuqaalka la gariisid oo aad share gareysid sida uu gaaro kuwa xumaanta sameynaya isla markaana channelka aad subscribe dhahdid maadaama aan waxyaabo badan oo nuucan aan soo gudbino aad iyo aad u mahadsantahay saaxiibkeena qaaliga. Intaas ayaa nuxurkeedu ahay in wiil ay wada shaqayn jireen hal sano iyo bar oo ay xiriir jecel lahaayeen saaxiibana ay ahaayeen nin aad iyo aad u aamintay maadaama ay muddo dheer soo socdeen oo muuqaalkaas ka soo codsaday kadibna ay ka diidi weyday kadibna ay u dirtay muuqaal balse inkastoo ay muddo dheer soo shaqaynayeen aysan ka warqabin waxa qalbigiisa ku jira ayaa sabab u noqotay in muuqaalkaas uu soo baxo wiilkaasna uu noqdo wiil laga roona ah oo doqon ah isla markaana uu faafiyey muuqaalka uu asagoo ka dalbaday oo gabadhii saaxiibtiiseed oo ilaa hal sano ay soo wada shaqaynayeen oo xiriir jecel oo ka dhaxeeyay oo sababay in ay kala tagaan isla markaana dib dambe isku salaamin balse qoraalka ayay ku sheegtay inaysan kaga hari doonin oo ay ka aarsan doonto isla markaana ay dacwo ama kiis dacwo la xiriir ay ku soo oogi doonto maadaama ay taqaano oo ay ogtahay waddanka uu degan yahay inkastoo aan waddanka gudihiisa uusan degan. Sidoo kale waxa ay ka codsatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ay joojiyaan muuqaalada ay sii faafinayaan ilaa haatan maadaama uu falkaas ahay fal dhacay oo qalad ah isla markaana ay waalidkeeda ama familkeeda ay u daayaan wixii la xisaabtama. Sidoo kale waxa ay sheegtay in dhammaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanayso in aysan faafin muuqaalada ay weli sii faafinayaan maadaama uu muuqaalku intaas oo kaliya ah. Ka codsanayaa dhammaantiin muuqaalkan inaad share gareysaan haddii ay idin dhibayso sida in loogu takrifalayo dumarkeena Soomaaliyeed sidoo kale inaad la gareysaan aadna share gareysaan.